ujeedooyinka way kala duwan yihiin waxay isugu jiraan mid siyaasadeysan iyo mid dhaqaale iyo mid diiniyan ay isku jiraan wadamada qaar scholarship-yada bixiya sida hadda bangiga islaamka oo kale scholarship bixiya waxay ugu talagaleen in wadamadan islaamka ay ardadooda ay tayada ay ka dhisaan dhinac ahaan waxaa isleedahay waa dhinac oo fi sabilillah ahaan oo diin ahaan dadkan in ay kala dhaxaysa waxaa jira scholarship Sacuudiga oo kale King Fahd University scholarship bixiya jiro oo ardada Soomaaliyeed badan kama faa'iideystaan laakiin scholarship ardada Soomaaliyeed ay heli karaan ka jira jaamacadaha Sacuudiga gaar ahaan King Fahd University marka taas oo kale waxa laga yaabaa waxay ku siinayaan qaab diin ahaan hadda waxaa jirtay sanadkan waxaa maqlay Qatar waxaa ka jira scholarship ee Soomaaliya ugu talgashay 250 scholarship gaaraysa marka wadamadan islaamka naga dhaxeeya oo diinta naga dhaxeyso scholarship-yada ay bixiyaan inta badan waa wax ku saleysan dhaqan iyo diin iyo walaaltinimo waxaa jira scholarship-yo ay bixiyaan tan hadda aan ka sheekeynayno Javelin scholarship ay bixiso wadankan Ingiriiska scholarship-kaas waxay ugu talagaleen waxay rabaan qofka bari hogaamin kara soo wadanka ama Soomaaliya oo kale qofka hogaamin kara ama noqon kara qof maxaa la dhahaa meel ka muuqda dhinac walba ha noqdo sector walba ama dhaqaalaha ha noqdo ama siyaasadda ha noqdo ama waxbarashada ha noqdo ama engineering ha noqdo dad isleeyihiin bari waa focal point oo qof maanta lagu soo dareersan karo qof dadka noocaas oo kale siiyaan ujeedadan waa ujeedo siyaasadeed waxay rabaan wadankan meel laga soo galo inuu lahaado Turkiga oo kale wadamada walaalaha anaha scholarship badan si ay kamid yihiin aadna noo caawiya Turkiga ayaga waxay ku jirta diilo weyn oo ah in ay ahaan jireen dad adduunka dhinaca islaamka dhan xukumi jiray marka kind of xukunkoodii oo islaamka ay xukumi jireen in ay dhaqankoodii in ay wadamada islaamka gaarsiiyaan iyo wadamo badan gaarsiiyaan haddii dad badan oo Soomaaliya ay Turkiga wax ku soo bartaan oo dhaqanka Turkiga soo qaato waxa sii weynaanaya xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhaxeeya marka wadamada marka interestiyo kala duwan oo kala nooc kala leeyihiin qaarkoodna qaar waxay iska jira maxaa la dhahaa dad muxsiniina iska bixinaya muxsinka wuxuu noqon karaa qof muslim wuxuu noqon karaa qof gaala wixii ajira ilaahay agtiisa buu qofka muslimka helaya laakiin dad waxaa jira gaala oo lacagtooda markay dhintaan dhahaya scholarship lagu siiyo oo ayaga laftikooda maxaa la dhahaa ula jeedaya in ay maxaa la dhahaa dad caawiyaan niyo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa saxan ku gud saan ku gud oo macnaheedu uu yahay qofka waxa weeye marka aad ma aragtay wanaag ku falo adiguna wanaag baa u falaysaa oo hadduu wax ku siina waxbaad siin haddii uu ku soo socdo oo ku soo lugeeyana asagana waad u socon waad u lugeyn marka deeqahaas waxbarasho ujeedadooda ugu badan waxay tahay in Soomaaliya la maal gashado sharafteeda la maal gashado ardayda la maal gashado oo hadhow iyadana ma aragtay taa bedelkeeda markay cagaheeda isku taagto ay sameeyso sidoo kale waxa ka mid noqon kara sababaha deeqaha waxbarasho loo siiyo in ma aragtay la faafiyo ama ma aragtay la hormariyo hadba wadanka ardaydaas ay tagayaan afkaarta iyo ideology-ga iyo luqadda iyo looga hadla iyo waxyaabaha la midka ah tusaale kale ardayda aadaysa Turkiga ee deeqaha waxbarashada hesha intooda ugu badan waxa ma aragtay mandatory ama qasab ah in hal sano ama muddo adigu ay afka Turkiga ku baranayaan ay ka horeyso inta ay waxbarashada galayaan intooda badan waxa lagu soo qoraa jaamacado ku baxa af Turki marka taa macnaheedu waxay tahay wadankii waxa uu doonayaa in ma aragtay luqadiisii thaqaafadiisii dhaqankiisii oo ardayga ka soo buuxiyo marka uu ku soo laabtana uu ku yimaado arday haaf ka ah oo Turki haafna ka ah Soomaali kaligiisna ma aha sidaas la mid ah wadamada Carabta sidaas la mid ah wadamada reer galbeedka marka ardayda ay ku xiran tahay in ma aragtay ay iskala reebaan oo maskaxdooda ay arinta u kala fahmaan waxa kale oo kamid ah sababaha deeqaha waxbarashada loo siiyo heshiisyo dawladaha ay galaan oo Soomaaliya iyo dawladdaasi ay galayaan oo ma aragtay Soomaaliya ay wax kale ku bedelanayso in deeqda waxbarashada ay hesho marka tilmaamahaas aan soo sheegay iyo kuwa kale ay noqon karaan ujeedooyinka hay'adaha ama ma aragtay dawladaha ay ka leeyihiin in deeq waxbarasho ay ku siiyaan